السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لله waxaan halkan ku baranaynaa luqadda carabiga fusxada waa luqad islaam ma ahan luqad carab iska leedahay carabta maanta joogto waxay ku hadlaan luqad u khaas ah waa lahjo u khaas ah lahjadaasi ay ku hadlaanna way ka fog tahay luqadda carabiga fusxada qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan fahmi karinba luqadda carabiga fusxada sidaas darteed looma tiirin karo luqadda carabiga fusxada inay carab leedahay waa luqadda ummadda nebi moxamed cashirka koowaad maanta waxaan ku bilaabaynaa xarfaha carabiga الحروف الهجائية وحرفها ألف بيت هلو يقانو أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ص ش ص ض ض ظ ع غ ث ق ك لا ما نا و ها يا xarfahan carabiga aan ku soo dhawaaqnay qaabkay u qoran yihiin waa qaabka loo qoro marka keligooda la qorayo ama marka ereyga ay gadaal ka galaan xarfo waxaa jiro aanan xarfa kale la xiriirin waa 6 xaraf waa a da da ra za wa xarfaha qaarna marka ay ka galaan kelmadda dhexda way isrogrogaan way isbedelaan sida ca ga fa qa sidaas darteed markii xarfaha la isku xirayo waa in intaas loo eegaa tusaale ba a ba waa 3 xaraf 3 xaraf markaan isku darayno bacda waxaa loo qorayaa sidan a'dana sideeday ahaanaysaa bacdana maadaama bacda kale ay u dambeyso kelimadda sideeda ayay ahaanaysaa markii la isku dhejinayana waa sida tan tusaale labaad ja sa ma ja'da way isbedelaysaa ma noqonayso sidii markii keligeeda taalo waa la jiidayaa sa'da sidoo kale waa la jiidayaa ma'da maadaama ay u tahay xarafka dambe kelmadda sideeda ayay ahaanaysaa sidaas darteed waxay noqonaysaa jism tii hore waxay ahayd ba a ba baabun albaab tan labaad jismun jir tusaale saddexaad ca qa la ca'da sidaas ayaa loo qoraya waa isbedelaysaa qa'da waxaan soo sheegnay inay dhexda markay gasho isbedelayso way tooseysaa ca qa la caqlun caqli kan kale sha ca a ra sha waasa sidaas oo loo qorayo waa isbedelaysaa acda sidaas isku bedelaysaa a'dana waa sidaas shicaarun astaan marka ra'da maxay alifka ugu darsami weysay a'da waxaan soo sheegnay 6 xaraf inay jirto aan gadaashood wax lagu darin a'dana way ka mid tahay sidaas darteed a'da iyo ra'da la iskugu dhejin waayay tusaale ku xigo a ra za a'dan waxay ka mid tahay 6 xaraf aan wax lagu darin ra'dana sidoo kale la mid tahay za'dana sidaas soo marka sidaas darteed saddexdoodana iskuma darsamayaan urzun bariis ra a sa ra'sun sidoo kale ra'da iyo a'da xarfahan la isku darin ay ka mid yihiin siinka kuma darsamayaan tusaale kale ka la a ma ka'da sidaasay u qormaysaa markii keligeed la qorayna sidaasay u taalay haddana sidaana loo qorayaa la'na waa la jiidayaa a ma'dan iyada u dambeysa kalaamun hadal kelmadda kale ma ka ta ba ma'da sidaasaa loo qorayaa maadaama iyad markii keligeed taalin dhulka dhinaca hoose loo jiiday haddana waa la toosinayaa ka'dana sidaana loo qorayaa ta'dana waa la jiidayaa maadaama aysan ahayn xaraf u dambeeyo waa xaraf kale ka dambeeyo bacdiyaa ka dambeys bacdi siday u ahaanaysaa xaraf kasta markuu u dambeeyo sidii alifbeetada uu u qorneyd xarafka hijaa'iga ayuu ahaanayaa hadduu u dambeeyo kelmadda u dambeyso sa ha ra ya ja sa'da soodka sidaasa loo qorayaa ha'dana sidan u isbarbetashay ra'da ha'day ku darsamaysaa balse ra'da iyo ya'da laguma darayo maxaa yeele ra'da waxay ka mid tahay 6 xaraf aan gadaashood wax lagu darin sahriijun haan ama booyad iska dheh marka sidaas si aad u ogaato xarfaha wax lagu darayna xarfaha lagu daro waxaad ku kala ogaan kartaa qaabkan hadda inta ugu qoran yihiin a'da sideeda markii xarafka hore ay gasho alifkiiyo taagan weeye markii xaraf dhaxal loogu darayo iyo markii uu dhammaad uu ku jiraba labada marna xariiqin ah waxaa xagga hore ka raacisila xagga dambe wax laguma daro 6 xaraf aan wax lagu darin ay ka mid tahay waxaa isku eg xarfaha ba ta fa na iyo ya markay dhexda ku jiraan ya-da way kaga duwan tahay markii keligeed loo qorayso nacdan way ka duwan tahay markii keligeed la qorayo balse markay dhexda ku jiraan lixdooda waa isku mid dhibicda ay ku kala duwan yihiin mid waa hal dhibic
oo hoose ba ah, hal dhibic korna waa na, laba dhibic kor waa ta, saddex dhibic kor waa tha, laba dhibic hoosena waa ya. markay u dambeeyaanna sidaasoo kale ayay isku bedelayaan, ama sidii hore u yaalina u noqonayaan, ama jiiditaana ka hormarayso sidaasoo kale. waxaa kaloo isku mid ah ja'da iyo xa'da iyo kha'da isku qoraal ayay yihiin markay dhammaadka ay ku jiraan. markay bilow ku jiraan waa isku mid, markay dhex ku jiraan waa isku mid qaabka loo qorayo. xarfayaashan ra, za, da, da'da waa iyaga isma bedelaanba, maba isbarogaan. xarfaha aan isbedelin waayo xagga hore hadday galaan, xagga dhaxa hadday galaan, xagga dhammaad hadday galaan, waa afartan xaraf isma bedelaan. ca'da iyo ga'da markay dhexda galaan waxay noqonayaan sidii sambuus oo kale, saddex gees. fa'da iyo qa'dana waa sidoo kale way wareegsamayaan markay dhexda galaan sida aad ka aragto. markay dhammaadka galaanna sideeda hore ay ahaanayaan, ama xariiqin ayaa ka horeyso, xarafka ka horeeyay ku dhigayaan haddaysan ahayn lixdii xaraf aan wax lagu darin haddaysan ka hormarin. kacda markay keligeeda tahay waa sidaa, markay hormaraysan waa sidaa, markay dhex maraysan waa sidaa, markay horgala tahay ama dhexda ay ku jirto kelmadda ay ku jirto ayaa kacda sidaas loo qoraa. laakiin balse markay u dambeyso sidii la oo la dhexgeliyey hamza. xarafka la'dana waa sidaasa loo qorayaa, sidiis markuu taagan yahay, markuu jiitamayana wuxuu u shabahayaa xarfihii bacdi iyo nacdi iyo ta'dii oo la dheereeyey aan dhibcna lahayn. markii u dambeeyana oo xarafka horeeyana wuu jiidmayaa. ma'dana sidaasaa loo qoraa markii keligeeda tahay, hoos ayaa xariiqinteeda taala, balse markii lagu daraya xaraf ay horumarto waa la jiidayaa. ha'da way ka duwan tahay iyaga, markii hore ay galayso waa ha'da sidaasaa loo qoraa weyn, dhex markay ku jirto waa saa, balse markay u dambeyso waxay noqonaysaa saddex gees oo keligii yaala ama ku darsan xaraf kale haddii u dambeyso. ereyada aan hadda soo sheegnay waa magacyo. magacyadana haddii aad doonto inaad ka dhigto mid laysa yaqaano waxaa laga raaciyaa xaraf, sida af soomaaligaba markii la dhahayo baabuur, baabuurka waa wax isla yaqaano baabuurka. sidaasoo kale af carabigana waxaa galo alif iyo laam, al, sida ingiriiskaba u galo the. xarafka ugu horeeyey ama ereyga ugu horeeyay aan soo qaadanay baab markii aan ka hormarnayno alif iyo laam wuxuu noqonayaa albaab, albaabkii. assahriij, booyadii ama haantii. balse farqiga u dhexeeyo al baab markaan dhahna alifka iyo laamka markaan ku darnay baab, baab albaabka, la'da waa lagu dhawaaqay, balse sahriij markii alif iyo laam aan ka hormarinay la'da laguma dhawaaqo assahriij. maxaa yeelay waxaa luqadda carabiga markii oo la geliyo alif iyo laam jumlada waxay noqonayaan labo midkood, imaa inay noqdaan xarfaha loo yaqaano xarfaha dayaxa qamariya, oo sida qamar markii alif iyo laam laga hormaraya al qamar aan laha, al la'da waa la sheegayaa, balse cadceed markii la dhaho shams, al shams ma la dhahayo, ashams aa la leeyahay, laguma dhawaaqayo laamka, halka qamar lagu dhawaaqo. saas darteed waxaan u qornay xaggan xarfayaasha alif iyo laam markii lagu daro aan lagu dhawaaqin laamka, si loo muujiyo in laisla yaqaano, iyo kuwa aan lagu darin waa sida kuwa ku hoosan liiska. a'da alasad, ba'da albaab, ja aljamal, xa alxuruuf, kha alkhinziir, ca alcanab, gha alghadaa, fa alfahd, ق القمر، م الموز، ه الهواء، و الوقت، ي الياء. حرفها شمسي لو لعض لو دواقنا وت التركي، ث الثوب، د الدرس، ذ الذكر، ر الرسم، ز الزوج، س السمك، ش الشمس، ص الصورة، ض الضابط، ض الطويل، ظ الظروف، ل الليل، ن النوم. turjumaaddooduna waxaan ku qoray hortooda. waxaan filayaa in la fahmay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.